Assalaamu calaykum. Soo dhawow daawade waa mar kale iyo muuqaal cusub. Muuqaalkeenan waxaan kaga hadli doonaa isbeddelka nolosha, annagoo ku cabirayno sheeko aad u xigmad badan. Wiil dhalinyaro ah ayaa aad u niyad jabsanaa. Sanad kasta wuxuu isku dayi jiray inuu isbeddel sameeyo, haddana waxba iskama beddelin noloshiisa. Dhibaatadii haraysa waxay ahayd sideedii, waxaana mar kasta ku kordhayay jahwareer iyo kadeed. Maalin ayaa waxa uu u tegay nin khabiir ah. Wuxuu uga sheekeeyay xaalkiisa. Ninkii khabiirka ahaa ayaa ku yiri, ma garanaysaa inta sano ay qaadato inuu ku koro geedka bambuuga la yiraahdo, noqdana mid aad u dheer. Sanadka ugu horeeya marka la beero, waa la waraabiyaa, waana la bacrimiyaa. Haddana sidaas oo ay tahay waxba iskama beddelaan. Waxaana la waraabiyaa haddana la bacrimiyaa sanad kale oo buuxa. Sidaas ayaana lagu wadaa 3 sano oo kale. Waxba ma dhacaan oo geedka waa sidiisii waxba iskama beddelin. Kadib sanadka shanaad wuxuu geedkii isku shareeraa cirka. 6 isbuuc gudaheedii geedka bambuuga wuxuu kor u koraa 90 feet oo la mid ah 27 mitir. Haddaba intee bay ku qaadataa inuu sidaa aadka u dheer u koro? Wuxuu ninkii dhalinyarada ahaa ku jawaabay 6 isbuuc. Khabiirkii ayaa ku yiri taasi waa khalad, waxay ku qaadataa 5 sano inuu sidaas u koro. Haddii qofkii beeray joojin lahaa inuu waraabiyo, bacrimiyo, ka shaqeeyo mid ka mid ah 5 sano uu dhiman lahaa geedka. Waxa dhacay 5 sano waxay ahayd dhulka hoostiisa shabakad weyn oo xidid ah ayuu ka samaysanayay si ay u taageeraan koritaanka geedka bambuuga. Korriimadu waxay u baahan tahay dulqaad iyo kala adeeg. Dhibic kasta oo biyo ah farqi ayay samaynaysay. Tallaabo kasta oo aad qaado raad bay reebtaa. Horay kama arki kartid isbeddel, laakiin korriimo ayaa dhacaysa.